الرحمن الرحيم عاو هلكم waxaan ku qabanayaa shir jaraa'id anigoo Axmed Jaamac Xaaji Ciise Gedele degan dalka Sweden magaalada Gothenburg waxa ay u kalifay shirkan jaraa'id caawa inaan qabto arrimo ku saabsan arrimaha khaatumo haddaan wax yar galo arrimaha khaatumo iyo sidii khaatumo loo sameeyay iyo dhibtii khaatumo loo soo maray ayaan rabaa marka hore intaan u gudbin arrimaha kale inaan marka hore bal in yar kormaro khaatumo 5 sano ilaa 6 sano ayaa arrinkeedu socday ilaa SSC ilaa khaatumo 1 ilaa khaatumo 2 ilaa khaatumo 3 ilaa iyo lagu dhameystiray maamulkii khaatumo waxa u dhintay dad baa u dhintay dad baa u agoonooday dad baa hadda saacada xilligan la joogo ugu jira difaac ugu jira hawdka iyo dhirta hoosteeda 4,000 oo reer khaatuma ayaa isugu tagay magaalada Taleex halkaas ayaa go'aan lagu gaaray in la sameeyo maamul la yiraahdo khaatumo laguna sameeyay maamulka khaatumo maamulkaas oo hadda maamul buuxa oo golihiisa baarlamaan kale oo golihiisa fulinta leh oo golihiisa odayaasha leh dhammaan maamul dawlad oo dhan oo buuxa leh oo hadda shaqeeya haddaan wax yar ka hadallo fara badan iyo dad badan oo intaas ka hadlaya oo TV-yada soo taagan iyo kuwa wax qoraya website-yada oo leh waxa la sameynayaa maamul la yiraahdo khaatumo iyo maamul maakhir baa isku daraya waxana laga soo bilaabayaa zero baa laga soo bilaabayaa wax khaatumo la yiraahdo ma jirayso zero baa laga soo bilaabayaa hadalka teegu kaliftay inaan caawa shirka jaraa'id qabto waxa weeye markii aan maqlay ilaa laba bilood gudahood khaatumo iyo maakhir baa isku daraya waxaan laga bilaabayaa zero baa laga bilaabayaa sidaasana lagu sameynayaa maamul sool iyo sanaag iyo cayn la yiraahdo taas ugu weyntay ugu kaliftay inaan caawa shir jaraa'id qabto waligii aan shir jaraa'id qaban arrinkaas dad badan oo reer khaatuma ayaa waxa ka seexan waayeen khaatumo halkaas ay ugu dhamaatay maakhir iyo khaatumo ayaa la isku darayaa halkaasana zero looga soo bilaabayaa arrinka dad badan baa ka seexan waayay arrinkaas ayaan rabaa marka inaan ku nuxnuxsado runtii waxa jirtay bariyo dhaweyd group ama dad shir ku qabtay magaalada la yiraahdo Nairobi halkaas oo ay kaga hadleen in la sameyn doono maamul la yiraahdo sool iyo sanaag iyo cayn la yiraahdo ayay kaga hadleen halkaas iyadoo ay sheegayaan in la yiraahdo in laga bilaabo zero oo wax khaatimo la yiraahdo aan jirin wax maakhir la yiraahdo aan jirin kow laga bilaabo maamul laga sameeyo sool sanaag cayn hadalkaas ayaa dad badan oo reer khaatumo oo adduunka kala jooga ayay dhibsadeen arrinkaas waa arrinka ugu weyn ka saxan weynay waxa weeye halka waxa ka hadlay Nairobi oo anigu aan xusuusnahay gabadh la yiraahdo Caasha Cabdalle oo ku jirtay baarlamaanka Soomaaliya ku jirtay haddana degan magaalada Nairobi gabadhaas waxay sheegtay in maakhir iyo khaatumo maamul loo sameynayo maamulkaas oo noqon doona maamul hadda zero laga soo bilaabo oo aan jirin wax la yiraahdo khaatumo iyo wax la yiraahdo aan jirin wax la yiraahdo maakhir arrinkaas
ayaa waxa weeye aan doonaya inaan si fiican u faahfaahiyo ama aan si fiican uga hadlo. kow horta waxa weeye khaatumo waa loo dhintay, samayntii khaatumo rag baa u dhintay. Kalshaale ayaa la ogaa dhibaatadii ka dhacday 400 ilaa 500 wiil ayaa waxay ku dhinteen magaalada la yiraahdo Kalshaale, Meygaagle iyo Hagogani aaga Bohole. intaasoo wiil baa ku dhimatay, waxayna ugu dhinteen oo lagu leynayay inaan maamul khaatumo la yiraahdaa jirin iyo wax SSC la yiraahdaa midna aan ka jirin baa dadka lagu laayay. soo socotay wuxuu dagaalkaasi socdaba oo marba meel soo maraba, markii dambana waa tii la tagay magaalada Taleex, waa tii dagaalkaasi dhacay oo halkaa lagu dilay dad badan oo reer khaatumo lagu dilay magaalada Taleex lagu dilay. iyagana waxa loo leynayay inaan wax khaatumo la yiraahdaa aan jirin iyo wax soo sanagayna midna aan jirin oo meesha aan waxba looga samayn baa dadka lagu leynayay. dadkaas waa ka soo socotay, dagaalku inta waa socday, inta kuma dhamaanin. markii dambe ilaa saxdheer baa dagaalku ka dhacay, ilaa Dharkeenga ayaa dad ku dhintay, ilaa iyo hawd oo dhan baa dagaalkaas dad badan baa ku dhintay. kii ugu dambeeyay waxa lagu laayay magaalada la yiraahdo Qoriley, dad ilaa 34 kor u dhaafay ayaa magaalada Qoriley lagu laayay. magaalada Qoriley dadkii lagu laayay ma ahayn wax kale oo lagu laayay, waxa loo leynayay wax khaatumo la yiraahdaa inaan jirin oo aaga aan jirin oo khaatumo la dagaalamayay. wax reer oo la dagaalamayay male, khaatumo la dagaalamayay, Puntland baa la dagaalamayay. sidaas ay tii ugu dambeysay ay u dhacday. halka waxa marka khaatumo soo maray dhibaatada dheer iyo halganka dheer ayaa khaatumo loo soo maray. khaatumo waxa ku baxay dhaqaale, khaatumo waxa ku baxay naf, ilaa iyo haddana way socotaa. marka waxa weeye dadka sheegaya ee leh khaatumo iyo nool baa laga soo bilaabaya, maakhir iyo khaatumo wax jira ma hadda way nool laga soo bilaabaa. dadkaas ayaan rabaa inaan la hadlo. waxa weeye Warsangeli iyo Dhulbahante ama khaatumo iyo maakhir wax way isku darsan karaan, waana sax. khaatumo iyo maakhir in la isku daro waa hadal sax, waana soo dhaweynayna. laakiin yaa wax isku darsanaya? khaatumo iyo maakhir baa wax isku darsanaysa. horta maakhir oo xageed joogtaa? maakhir xaguu jooga horta? reer maakhir ama waxa garadka reer maakhir waxaan u sheegayaa horta inay siyaasiyiinta reer maakhir intaan khaatumo ba raadinba horta inay dhulkoodi tagaan. kow waa inay baran tagaan, waa inay cilaf weyn tagaan, waa inay baran tagaan, waa inay jiidali tagaan, waa inay hadaftimo tagaan. halka oday dhaqameedyadii Warsangeli waa inay isugu yeedhaan halkaas oo ay kala hufaan oo kala haadiyaan oo ummadii loo sheego in maamul la samaynayo. halka ka bacdi inta markay sameeyaan waan hubaa reer maakhir in weerar lagu soo qaadi doono oo ay Puntland ku soo qaadi doonto oo Soomaaliland ku soo qaadi doonto. weerarada waan hubaa markay maamul baan sameynayna oo ay tagaan baran iyo agaarkeeda in weerar lagu soo qaadi doono. reer nimanka siyaasiyiinta Warsangeli markay saas sameeyaan oo weerarada lagu soo qaadi doono ay ka guuleystaan oo ay kala hufaan oo kala haadiyaan sida yadii annagu baan soo maray. halka wixii ka soo baxa ilaa 4 sano ilaa 3 sano ilaa 5 sano iyagoo soo diyaariyay oo nidaam soo diyaariyay oo dhulkoodii soo xaaqay oo odayaashoodii soo geeyay oo siyaasiyiintoodii soo geeyay oo halka wixii soo wareerina ka guuleystay. ka bacdi marka ayay oran karaan waxaanu ku soo biiraynaa khaatumaystiida Soomaaliya. markaasaan ku soo biiraynaa baynimaka odayaasha Warsangeli ama siyaasiga Warsangeli ee maanta xiisaynaya inay khaatumo iyo isku biiraan maakhir maalintaas isku biirayaan ay ku biiri karaan. laakiin anigoo jooga Nairobi sida Casha Cabdalle Nairobi iyada joogta oo hotel degan ayay hotelka laftiisii shir jaraa'id ka qabatay. shir jaraa'id ka qabatay waxay ku sheegtay in khaatumo wax la yiraahdo aan jirin ee zero laga soo bilaabo khaatumo iyo maakhirna la isku daro kow laga soo bilaabo. Casha waxaan u sheegayaa Casha waxa weeye khaatumo ciyaar khaatumo ma noqon. calanka khaatumo 6 bilood baa laga fikiray calan khaatumo leedahay in la sameeyo. Casha waxaan u sheegayaa kale 6 bilood baa waxa laga fikiray magaca khaatumo leeyahay magacu noqonaya khaatumo 6 bilood way yeer waxa qaadatay magaca khaatumo iyo calanka khaatumo ayaa hal sano qaatay. 4 sano waxa qaadatay odayaal dhaqameedyadii iyo siyaasiyiinta Dhulbahante ee adduunka kala joogay sidii la isugu geyn lahaa. dhowr sano kale khaatumo dagaal bay gashay ilaa
ساعة لقى حضلينا وحوي خارج خاطمه دفاع بكتيرة هم والله عاشوا حنو الشيء هذا السياسي أي تاي ودرسوا إن الماخر يخاطم يسكت درسمان وحكف يعني شرط شرائطك أكو قبطي مجالده نوروبي هوتيل كنوروبي أنت أكو قبطي وحكت على إن يأدو مجالده اللي هذا برن وهلك قري قاطو توتنا قشطو هلك مركا أي سوق جيسو dadkii halka deganaa ee warsangalay soo geyso dabadeedna halka ay markay soo geysay muddo ka bacdeed qorigeed siita tuutana sidata ay halka markaa shir jirayd geel hoosti oo baran u dhow ay ku qabato shir jirayd oo ay tiraahdo maakhir iyo khaatuma isku daraya siiro baynu ka bilaabayna caasha saas u fiicnay hadalkeeda caashana markaas macquul ahaan laha markay geedka hoostiisa ay shir jirayd ku qabatay baran dhow ay tuutana sidata qorigeena uu garbaha saaran yahay عاشا مركز الشرف وعلي لكن عاشا يلا أشوكته هوتيل نوروبيا تكن أول جد بيت بدنا نتجيب بدور كايراد وحال قطة صنايع أي تري ده سهل جميل ونفتي يمال يموت بكجب حين وديك السعبي سيروا من قبل عملنا وحيانا الله راح الشوطه وأفلجاته أنا بدأت كورسنجريا طلبا من هاي وسود وين إنه إحنا قطة صنان لكن قاب كعاشا وهذا شيء يكون لف النوروبي لا تشوفه يكون عدله قاب دad soo dhaweynaya iyo qaab wax loogu darsanayo midna ma waxaan markaa u sheegayaa oo kale aan ka codsanaya reer khaatumo meel uu joogaba waxaan u sheegayaa reer khaatumo waxa lagu saliday inuu reer u raadiyo reer raadis baa lagu saliday reer khaatumo cagaha dhulka ma dhigi karaan reer khaatumo waxay raadiyeen iyadoo Soomaaliya qaranka Soomaaliya baabay inay reer wax ku darsadaan bi raadiyeen waxay ku darsadeen reerka ma jeerteen la yiraahdo wax ku darsadeen waxayna la samaysteen reerka la yiraahdo Puntland ayay la samaysteen dhowr iyo 10 sano ayay ku jireen halka markay ay cidla la diray reer khaatuma waa ka bixin Puntland si toos ay uga bixin ilaa 7 sano ilaa 5 sano ay ka baxsanaayeen reer khaatuma waxaan u sheegayaa iyagoo ka baxay reer maanta inay reer kala maanta raadiyaan reer khaatuma inay reer kala raadiyaan iyagoo reer ka baxay inay reer kala raadiyaan maantana oo yiraahdaan warsagal baynu raadinayna iyagoo 5 sano maamul ahaa oo aan waxba wali aan caga isku taagno wali dagaal ku jira inay maantana yiraahdaan reer baan wax ku darsanayna oo reer baan raadinayna iyagoo ay ka qayrinayso maskaxdooda ka qayrinayso reer iyagoo ay ka qayrinayso hadda ka soo baxay oo aan kaba nasan ba reerka ay ka baxeen ayay durba waxay raadinayaan reer kale oo warsagal leeyahay ay wax ku darsadaan hadii reer kale dhulbahanta dib u raadinayo inuu wax ku darsado kuwii ay 15 sano ama 20 sano xoogooda iyo maalkoodii iyo aqligoodiba ku baxay ma jeerteen maxay uga baxayaan hadayba ay warsagal dib u raadinayaan isna waxaan u sheegayaa dhulbahante ama reer khaatumo waa inay cagaha dhulka ku hayaan waa inay iska daayaan in reerkan uu la raadinayo ee dhulbahante lagu saliday in dhulbahante inuu gooniba isu taagin lagu saliday reer khaatumo waxa ka codsanaya in iska daayaan madaxda maamul goboleedka khaatumo ee ugu horeeya madaxweynaha ee ku xiga madaxweyne ku-xigeenka ee ku xiga gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo oday dhaqameedkaba iyo dhammaan shacabka reer khaatumo waxaan u sheegayaa ilmaada rayaalow cagaha dhulka ku haya ha iska daaya inaad mar walba u reer raadisaan oo markaad reer raadisaan wax samaysaan hadhowto in reerkaas cidladii kaga tago haddaad mid ka baxdeen ilmaada rayaalow iska daaya reer kale raadisaan hadda waxaan kaloo sheegayaa oo baryahanba reer khaatumo maskaxda ka galay 2016 haddii wax la sameeyo 2016 January ama bisha 12 December haddii la gaaro waa ka kac dhulka galinaya oo wayna ka tagay cidlaana ka tagaya oo Soomaaliya oo dhan maamul goboleed bay noqonaysaa dibadna reer khaatumo cidla laga cararaya arrinkaas wax allaale wax ka jira mare arrinkaas wax ka jira sababta federaalka ka cararaya ee January 2016 ama December 2016 arrinta ka cararaysa ama dhulka kugu gubanaya ama dhul gariirka kugu dhacaya muxuu yahay federaal Soomaaliya wax ka soconaya ma jiro hadduu socdaan waa 10 sano ama 15 sano ka bacdi ayuu federaalka Soomaaliya soconaya waxaan idin sheegayaa oo idin ku celcelinaya oo aan example isku siinaya
federaalki meesha uu marayo oo ama aad kaga qoosanaysaan gaalkacayo ayaa maanta federaal isku dilaysa gaalkacaya dagaalka ka socda 25 sano ma socon maanta waxa la isku dilaya waa federaalki waa hal magaalo gaalkacay la yiraahdo oo mid waliba ay leedahay anu federaalki baan hayo anu qaybtaan xukuma ka soo soco cadaado waxay iyo sameeyay waxay isku dilayaan oo maanta ku dagaalamaya waxa weeye waa federaal cadaado waxay leedahay anu dawlad baan federaalki baan ee sameeyay waxay leedahay anu federaalki baan caabudu waxay taagtay degmaanahay gooni baan ahay anu federaal baan reer baleeyay taagtay halkaas maanta federaalki taagaya waxa oo kale Jubaland xagee joogta Jubaland waxay joogtaa magaalada leeyahay Kismaayo kaliya xukunta geedo ma xukunta geedo waxa weeye Kismaayo kaliya ka talisa intii kala wadiidanta oo qolo waliba waxay leedahay anu federaal ayaa ahay oo qolo kale ma ogoli federaalki Soomaaliya halkaas uu maraya in maanta xaafid la isu dilo marka reer Khaatimo waxa uu sheegaya cagaha dhulka ku haya haddaad maqasheen 2016 ayaa maamul goboleedyada la sameynaya dabadeedna dhulka gariiraya waxa laale waxa dhacaya male reer Khaatimo waxa uu sheegaya cadaado lugaha dhulka ku haysa cadaado cid uma baahna dhul sameeray cid uma baahna gaalkacyo waxay leedahay federaal baanay cid ma baahni bal madaxweyne ku xigeenka Khaatimo wuxuu marayaa maanta wuxuu marayaa nugaal buu marayaa sanaag buu marayaa maanta waftidiisi intay isu jirto buu hoodle iyo sanaag intay isu jirto reer Khaatimo qof walba wad garanaysaa fogaanta intay isu jirto intaas oo dhan marka magaalada la socdo laga reebo ma ahaane inta kale maamulkaas Khaatimo ayaa gacanta ku haya bal magaalooyinka cadaado iyo magaalooyinka dhuusamire iyo xaafadii gaalkacayo ayaa federaalki cagaha ku hayo nin waliba gurigiis ku dagaalamaya oo leeyahay anigu cid ku darsan maayo bal dhibaatada reer Khaatimo haysata ee ay soo aamini lahayn ee dhulka inta leeg ay aamini lahayn ee ay ku saliday inay iyagu si aamini waayaan oo dhulka inta leeg aamini waayaan ee una ilayhi haddana reer wax ku darsan ma joogi karo meeshii hadda maanta Khaatimo aynu intaas oo san u halgaban aynu shaqayn lahayn oo aynu dhulkeena xaran lahayn oo gobolkeena iyo barkeena haddaan 20 sano dambe aynan cid ictiraafan aynu xaran lahayn Soomaaliya waxa la ictiraafaya ninka gurigiisa xaada ee cagaha ku taagan laakiin nin mar walba qabiil raadinayo oo qabiil uu dusha laga saaray sida reer Khaatimo cid ictiraafisa ma jirto waqtiga hay iskaga qaadina horaad iskaga qaadeen reer baanu ku darsanaynaa horaad waqtigu iskaga lugo reer Khaatimo waxa ka codsanaya oo madaxweynuhu ugu sarreeyo cagaha in dhulka lagu hayo oo aynu gobolkeena iyo barkeena aynu xaaqano oo aynu ilaahay aamino oo dhulkeena aynu xaaqano oo markaynu quruxsano dhulkeena erebodadeen iskuuladeen dhaqtaradeen cashuurta iska ururino qof walba isaga inoo imaanaya laakiin dad uun cararaya oo wafti ku jira oo reer uu raadinayo wax ku darsado waa mushkilo bal cadaado eega cid marto cadaado oo degmaa waan u shukrinaqaya waan ugu ducay ilaahay khayr siiyo cadaado waa dad dhulkooda ku kalsooyin cid ma baahna dhusmar cid ma baahna cid doonayso gaalkay xaafadada cidooda inoo inta haysano inta reeradina waxaan u sheegay oo aad ugu xumaanay maanta uu kalifay shirkaas jaraadina qabto waa markaan arkay reerkii dhul bahante inuu reer raadinayo dhakada ka saaraya waqti yuu idinkaga lumin inaad reer raadisaan haddaad maanta tiraahdo warsangal anigu soo biiro runta waxaan idin sheegayaa inaan warsangal si fudud idinku soo biiray warsangal si fudud idinkuma soo biiray haddii ay idinka dhaadhacsantay 2 gobol iyo badh wixii ka badan baa federal noqon kara waxaan idin sheegayaa warsangal inuusan ciyaar idinku imaanayn oo waqti badan kaga lumay inaga 5 sano jiray oo dagaal ku jira oo waliba ay hadda dagaal socdo inaynu reer raadino oo waqtigu inaga lumo inagoo mid ka soo baxnay oo maxaynu u joogi weynay hadday sidaa tahay oo reer aynu raacayno oo aynu kow maanta aynu reer raadinayno kuwii hareeraha inaga xigay ee baryaya maxaynu wax ugu darsan weyn maxaynu ula dhiil garan weyn maxaynu u oran weynay tabdinaca ku dhigno waxay ka qadhiga intaynu reer cusub iyo kow raadinayno ha ku daalina warsangal runtan idin sheegaya inaan warsangal ciyaar idinku imaanayn waana maqliseen aqoon-yahanadoodii Kenya waanu la xidhiidhnaa warkeedana waanu ognahay warsangali iyo kuwa halkan aan joognaaba mar raba Khaatimo wax lagu soo darsado
ninka rabaana waa nin raba in zero laga soo bilaabo marka waxa ka codsanaya aan ku soo gabagabeynaya reer Khaatumo inay iska daayaan reer raadinta inay iska daayaan waa inay cagaha dhulka dhigaan waa inay gobolkooda iyo barkooda hagaajistaan qurxsadaan ka bacdi qof kasto Soomaali isaga u imaanaya وانا السلام يا دمانتي ملك استوى جوجتان ريخاتو هالنورات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته